dayaxdan nurshe mid ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan Soomaalida xilligan mid leh cod halaasi ah jecelna ka hela dhammaan kuwa xiiseeya fanka iyo suugaanta marmarka qaar waxa uu bartanka ka istaagaa hirarka hadalhaynta baraha xiriirka bulshada dhinaca internetka isagoo siyaabo kala duwan uga soo muuqda markaad suurootidu indhaasi kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxda kacee sidaada u qurux badno markaad suurootidu indhaasi kala dhaxdaa qalbiga soo jiidato dareenka saxda kacee sidaada u qurux badno waxa ay dadka qaar isweydiiyaan ama umaankooda ka guuxaya su'aalo ay jeclaan lahaayeen in la weydiiyo dayaxdan nurshe su'aalahaasina waxaa laga xusi karaa sidee ayuu dayaxdan nurshe fanaan ku noqday maxaa ka jiray in qoyskiisu ay yihiin kuwo culummo ah isaguna uu jidkaasi ka leexday iyo ka hadalka sheekada ugu weyn ee mar walba la isweydiiyey ee ah muxuu uga cararaa xafladaha ama showyada ay leeyihiin fanaaniinta kale sababta ugu weyn ee mar walba uu gabdhaha fanaaniinta uga cararo ama uusan ula soo haysin miyay taasi tahay sharci u yaalla xaaskiisa iyo ka jawaabidda su'aalo kale haddii aad doonayso inaad wax badan ka ogaato waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan laag saarto si saaxiibo badan uu gaaro una sheergari asxaabtaada si aan u helno saaxiibbo u wanaagsan sida adiga oo kale helmoodaya canan biya moodaya cishaan duhur moodaya cadan gudcur moodaya dayaxdan nurshe waa mid ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan Soomaalida waqtigan xitaa marka la joogo baraha bulshada waa mid aan laga adkaan karin hobol leh cod dahabi ah marmarka qaarna bartanka ka gala hadalhaynta bulshada quruxda suganee indhaha sidii qaansada u dhigan habeenta ku simuujiga timaha sugulkee madow siday soo araxda tegay su'aalaha soo socda waa kuwa taagnaa waqtiyo badan ilaa waqtigii la bartay magaciisa weydiinta ayaana ahayd maxaad uga carartaa gabdhaha fanaaniinta ah inaad heesaha la qaado iyadoo la wada ogyahay xanta miisaanka culus ee la xiriirta qoyskiisa ee ah in xaaskiisa aysan ka helin inuu la jaaso ama la ciyaaro gabdhaha kale iyadoo aysan xilligan ahayn wax lala yaabo in fanaaniinta xaaslayaasha ah ee ragga ay la haysaan gabdho kale oo fanaaniin ah waana wax dhaca sidaa ayayse ku dhacday in dayaxdan nurshe uusan marnaba ku fikirin samaynta filimkaasi dad badan ayay su'aashani maskaxdooda ka guuxaysay oo muhiimad weyn ay u lahayd in maalin un ay arkaan dayaxdan nurshe oo su'aashaasi ka jawaabaya hadda laakiin su'aal anaa ku weydiina dayax weli ma arag adiga oo gabar fanaanada la heesaya marka laga reebo Sacdiye Siman oo si wada jira aad ula heesteen adiga fanaaniin kale marka maxay tahay sababtu munamiska oo ka mid ah saxafiyiinta farakutiriska ah ee leh hibada faneed kuna shaqaysa mihnada saxaafadda ayaa mar qura wejiga hore dayaxdan nurshe ku qarxisay su'aashan waxaana waqtigaasi uu ahaa waqti la wada sugayey jawaabta inkastoo uu xoogaa daahsaday lagana dareemayay inay ku adag tahay ka jawaabideeda waxa uu bixiyey jawaab quman oo la aqbali karo isagoo tusaaleynayay sababaha ku kallifay inuu gabdhaha fanaaniinta ah uusan hayse la soo qaadin dayaxdan nurshe sidoo kale waxa uu sheegay inuu la kulmay gabdho fanaaniin ah uu taageeri jiray yaraantiisa fursadna uu haystay inuu la hayso balse aysan taasi ka dhigin inuu ka codsado inuu la hayso wallaahi horta choice-ka mar walba adiga iska leh oo qaadan karo inaad fanaanad la haysto iyo inaad iska dayso marka kuma xirno xumaan iyo wanaag labadaas laakiin sida caadiga ahba xaaskayga ani waxaan isguursanay 2016 November 19 intaas wixii ka horreeyay sida caadiga baa dabiicadahayga gaarka ah ma aha inaan fanaanad la heeso inaan xiiseeyo inaan fanaaniinta la heeso oo waxaan la kulmay intaas aanan guursan ka hor fanaaniin waaweyn oo qiimo badan oo caana oo qaarkood aniga aan taageero jeclaa inaan la kulmo aan jeclaa haddana saastay tahay marka aan la kulmay kalama hadlin inaan hees la qaado muhiimna ima ahayn marka sida caadiga marka laga hadla anigaysan choice-kayga ahayn taa kadibna marka hadda markii aan weynaaday oo fankaygana sii koray familna aan samaystay sida caadiyanka ah aniga waxaan leeyahay hadda famil waxaanan heestaa oo qabaa gabar yar oo qurux badan ka aniga maadaama gabar yar oo qurux badan aan qabo aan isku leenahay talo iyo tusaalo xaaskayga marka laga hadlana dadka kale ay tahay xaas nolosheeda iyo familkeeda ku adag ayadana kulkulul
anigana jacaylka aan u qabo taa darteed aan sii suuragelin weysa inaan fanaanad la heeso maxaa yeelay waxaa muhiimadda ugu weyn ee aniga mar walba aan saaro nolosheeda waxaa waaye nolosheeda meesha aan ka soo kacayo waa sariirteeda qofka ila joogo iyo gurigayga qofka igala soo baxayo waa xaaskayga marka wada hadalka ani iyadana uma wada noolin sida nin iyo naag isqabo oo kale waxaa naga dhexeeya waa ixtiraam iyo wanaag iyo wada hadal aan ku wada noolnahay oo mowqifyaana hor yaallo oo nolosheena aan ku dhaqanaa oo dhaqan gaara aan leenahay ah marka shuruudaha halkaasi ka dhacay ayaa ka mid ahayd inaan fanaanad la heesin anigoo tayada ay ahayn choicekayga marka horeba ay ahayn haddana shuruudaha halkaas ka dhacay farxiyo darteed aan dhihi karaa anoo weliba ku sidoo kale waxaa mar walba jirta su'aal aan marna duugoobin oo ah in dayaxdal nolosha qoyskiisa ay yihiin kuwa culamo ah isagana uu dariiqaasi ka leexday dadka qaarna ma oga in su'aashaasi uu ka jawaabay wakhti hore waxaana uu dayax sheegay inay taasi sax tahay dhal fannaanna uusan ahayn qoyskiisana ay yihiin kuwa culamo ah balse isagu ay dhallinyarnimada qaaday markii la yidhaahdo faamilkeena horta reer faamilka maamada markaan ka hadlo waxba shuqul shaqo kuma laha waa dadka adag fanfani isma soo galaan faamilka aabana waaba culumaba waa dadkii waxaa waaye diinta laga soo gaaray fankaba ka xishooda laakiin aniga waxaa waaye dhallinyaranimo qaaday oo fan awoowe iyo aabbo iyo isar iyo ab midna umalihii laakiin aniga ahaan igu soo taa ma garanayo aniga wixii iga dambeeya inay iga raaci doonaan fan yeelkeedii labadan waraysi ee kala duwan ayaa taabanaya laba su'aalood oo miisaan leh midda ugu horraysa ayaana ahayd sababta uu gabdhaha fanaaniinta heesaha ula soo qaadin iyo in qoyskiisa ay yihiin kuwo culamo ah balse isagu uu go'aansaday inuu dariiqaasi ka leexdo oo uu fanaan noqdo waxaana ka hadalka sheekadan ay ku soo beegmaysaa wakhti xasaasi ah oo uu dayaxdal nolosha si layaable u diiday ka qaybgalka showga Qamar Suugaani kaasi oo sababtiisa aan weli la ogeyn daawada haddii aad muuqaalkan daawatay like saar si muuqaalku uu saaxiibo badan u gaaro una sheer gari asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale aragtidaadana inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho aad ugu mahadsan tahay la jaanqaadkaaga